Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan qaadan doonaa application-kan. Magaciisa waxaa la yidhahdaa Qatma. Application-kan faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu kuu xadido maalintii waxaad akhrin lahayd oo Qur'aanka ka mid ah. Sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay adkaaraadka subaxii iyo galabtii inuu kuu xadido saacadihii aad akhrin lahaydna uu kusoo xasuusiyo. Marka ugu horreysa ee uu soo kaco waxaa arki doontaa labadan luqadood. Luqaddii aad ku fiican tahay ayaa dooranaysaa. Aniga waxaan dooranayaa luqadda English-ka. Waxa uu ku soo saarayaa calaamadan oo ah Qur'aankii ayaan bilaabaynaa. Waxaan ku dhufanaynaa continue. Markii ay meeshan kuu soo baxdo Qur'aanka haddii aa maalintii juz akhrisid waxaa Qur'aanka ku dhammaysaa 30 maalmood. Haddii aa ka yar akhrisid waxaa samaynaysaa inta ayaa minus 10 ayaa ku dhufanaysaa. Haddii aad 7 maalin ku dhammaysid Qur'aanka isaga ayaa kuu xadidayo inta akhrin lahayd. Haddii aad 30 maalin ku akhrisidna 30ka maalin ayaa dooranaysaa oo ah maalintii waxaa akhrinaysaa juz, bishiina waxaa ku dhammaynaysaa Qur'aanka 124. Inta maalin ee adiga aad Qur'aanka ku dhammaysid ayaa inta ka dooranaysaa. Muhiimaddu waxa waaye inta maalin aad Qur'aanka ku dhammaysid. Intan asigaa kuu xadidayo inta juz ay tahay, haddii ay juz tahay, haddii ay xisib tahay asigaa kuu xadidayo. Waxaan leenahay continue. Maalintii haddii aad juz akhrisid maalin kasta waxaa akhrinaysaa 20 page. Page-ka koowaad ilaa page-ka 21. Qur'aanka mar kasteeto aad bilaabaysid waxaa ku dhufanaysaa calaamada cagaarta ah oo start reading. Markii aad Qur'aanka aad dhammaysidna oo akhrinta aad dhammaysidna waxaa leedahay dhan oo ah micnaheedu Qur'aan akhrintu waan dhameeyay. Qaybtan waxaa ku jira qaybta adkaaraadka. Adkaarta ugu horreysa waa adkaarta subaxii. Tanna waa adkaarta galabtii la akhriyo ama habeenkii. Adkaarta markii aad seexanaysid. Adkaarta markii aad dukatid kadib. Adkaarta markii aad soo kacdo hurdada aad ka soo kacdo. Adkaarta markaa masaajidka u socotid. Ducooyin kaleeto. Ducada markaa Qur'aanka bilowdid. Ducada markaa safar aadid. Iyo ducooyinka qofka markii uu jin ama ruqyada jin ama il ama sixir lagu akhriyo. Intaasoo ducooyin ayaa ku jirto. Qaybtan kale waxaa ku jirta Qur'aanka 114 suurad kasteeto. Intana waa jusaskii waaye. Qaybtan kore waa suuradihii waa suuratul Faatiha ilaa Bilbinaas. Intana waa juz koowaad, juzka labaad ilaa juzka 30aad. Qaybtan waxay naga caawinaysaa waxa waaye intii aan soo akhrin maalintii meeqaan akhrinay hal juz. Meeqa maalin loo dhima 28 beri. qaybtan waa Qur'aanka la sunneeyo. Suuratul Kahfi waxaa la sunneeyaa maalinta Jimcaha. Suuratul Mulk habeenkii markii la seexanayo si ay qabriga kuugu noqoto. Suuratul Baqara si ay guryaha shayaadiinta ay uga celiso. Inta Qur'aanka maalintii waqtiga jeceshahay in lagu soo xasuusiyo ayaa intana ka dooranaysaa. Hada 10 saac oo galabnimo ayuu kusoo xasuusinayaa. Maalintii meeqa juz akhrisaa jalaad marataa intaa ka bedelaysaa ayadana. Haddii aad jalaad akhrisid intaa ka bedelay, haddii aad juz akhrisid, haddii aad xisib akhrisid meeshii aad ka bedeli lahayd waa horaan usoo aragnay. Adkaaraadka goormaa lagu soo xasuusinayaa adkaarta subaxii iyo kaleeto 1 saac kusoo xasuusinayaa. Adiga haddii aad waqti kale ka hor akhrisid ama kadib aad akhrisid waa ku dhufanaysaa waa ka bedelaysaa. Sidoo kale adkaarta habeenkii galabtii goormaa lagu soo xasuusinayaa 11 saac iyo bar. Haddii aad waqtigaas adiga aan ku qanacsanayn waqti kale aad akhrisid waa iska bedeli kartaa. Suuratul Mulki ma akhrisaa habeenkii haddii aad akhrisid inta ayaa furnaysa oo kusoo xasuusinaya iyo xilliga kusoo xasuusan lahayna intaa ka dhiganaysaa. Suuratul Baqara habeenkii ma akhrisaa haddii aad akhrisid waqtiga intoo ka bedelaysaa. Qaybtan waa qaybta languageska haddii aad ku dhufatid Carabi ayuu kuu noqonayaa. Haddii aad hoos ku dhufatidna English ayuu kuu noqonayaa. Marka application-ka waa application aad u faa'iido fara badan leh. Marka aan ka wada faa'iidaysano. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.